بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan idin wadaa warbixin cusub oo aydan horay noocan u maqal wax ka sheeg uma qalin qaadan waxaan u qalin qaatay dadkayga in aan waxa aan ogahay u sheego siiba dhalinyarada jaamiciyiinta ah iyo mustaqbalkooda aayahooda saameentay ku lahaan lahaayeen oo ay caawa bannaanka ka taagan yihiin. Soomaaliya lagama sheekeeyo daraasadna lama keeno ku aadan maxaa ka dhacay, sidee bay wax u dhaceen, see baa loo sixi karaa. arrinta hadday siyaasadba tahay dal yahay saddex shay ayaa la isku xiraa. joogto waxa markaa kuu muuqda, ma garan kartid joogtada haddaadan tagtadii xiriirka la lahayn maanka ku hayn. joogto iyo tagto oo wadajir caqli wadareed lagu darsay maanshiil lagu daray ayaa timaado la ogdoorasi karaa, joogtana wax laga qaban karaa. hadduu jiro qof daraasad ka sameeyey Soomaaliya iyo wixii ka dhacay, waxaa jira hal nin oo la yiraahdo Pietro Petrucci. Pietro Petrucci waa uu dadaalay in uu daraasad isu xil saaro. wuxuu ka soo bilaabay 1950 ilaa 1960 muddadaas oo ahayd muddadii wisaayadda Talyaaniga loo xil saaray ummadan Soomaalida ah in uu gaarsiiyo aqoon ay ku hanan karaan dalkooda in ay hoggaankiisa qabtaan. uu soo eegay ma waajibkoodii ma guteen mise waxbaa ka dhinaaday. wuxuu haddana eegay 60kii ilaa iyo 69kii dowladdii rayidka ahayd in uu eego maxaa ka dhacay, oo wuxuu rabaa inuu eego qaraxaan dhacay ma wax iskii u qarxayba mise waa wax isbiirsaday 50kii 60kii 60kii 69kii kadibna wuxuu eegay 69kii ilaa iyo 91kii. mar kastaba marka aad daraasad sameynaysid mogtahay shay waa dheer yahay lama oran karo haddii wax ka gaaban ayan jirin. Soomaaliya wixii ka dhacay min 91kii muddada intaa la eg waxaa lagu ag eegayaa dowlad kale, dowladaha Afrikaanka lagu ag eegayaa horumarka ay gaareen iyo siday isu maamuleen iyo ma adraag. marka Petrucci ma soo helin wax uu yiraahdo sababtaas ayay Soomaaliya u burburtay, waa uu soo waayay. conclusionka uu gaaray ma ku waafaqsan aniga, laakiin waa uu dadaalay. oo qofkii raba in uu daraasad sameeyo reference buu noqonaya. aniga marka waxaa igu dhashay bal gadaalka sii aad oo waxaan aaday in aan daraasad ku sameeyo qarnigii 16aad ilaa iyo maanta aan joogno, in aan keeno wax alla wixii na soo maray. daraasadaas ma u bandhigayo sidii uu Petrucci u bandhigay. Petrucci 50kii buu ka bilaabay. anigase waxaan arkay Soomaalida warkaada waxaad ku gaarsiin kartaa dariiqa qaab Soomaaliyeed, ma aha qaabkii gadaal loo noqonayay kabacdi maayo. waxaan aaday in aan daraasadda ka bilaabo
maantada aan joogno oo ka bacdi aan gadaal u noqdo. waxaan ka bilaabayaa oo aad markhaanti iiga tihiin oo aad ii wada qiraysaan in soomaalida dibadda aaday, yurub aaday, maraykan aaday, oo qaxooti ku tagtay, oo marka dambe qurba joog noqotay, waxaa lagu arkay caalamka uu ku arkay. soomaalida yurub iyo maraykan tagtay 54 dowladood oo muslin ah waa 100 sano ka horreeyay. soomaalida markay tagtay muddo gaaban ay la qabsatay, tabcatay, fahamtay, waxaa lagu arkay wax aan dadkii ka horreeyey 56 dowladoodu ka horreysay oo aan ku nahay annaga 57 dowladoodoo muslin ah, waxaan lagu arag bay Soomaali la timid. nin baa faanayo mar wuxuu yidhi إني وإن كنت أخير الزمان لآت بما لم يستطعه الأوائل إن كستون قبال كإمد هذانا وحان لا إمد وحدك إيوه الرئيين أي كروايين محي كروايين دتك كهريين وإسلام كعها وحي كروايين إن أي دين تودا لصو بلان بحان diintooda la dhaqan noqdaan, masaajido in ay dhistaan. wamaa adraak Soomaali markay tagtay noocan ma waa revolution islaamic baa lagu arkay. waa ligaga sii xog ogaalsan yahay, laakiin waxaan ku gaabsanayaa qura inaan iraahdo bismillaahi raxmaan raxiim. nin Bakistaan ah hadal uu yiri oo yiri anigu yiri Soomaalida waa qaxday iyo waa soo haajirtay midna oran maayo ee Ilaah baa noo soo diray. wuxuu yiri aniga ma tukan jirin buu yiri jimco waxaan tukadaa markaan dalkayga fasax u qaato, haddana jimcayga ma tagto. hadalladan iyo dhaqankan iyo Soomaalida sida loo arko waxay noqdeen dad muslimiina oo muslimiintay u tageen ka sheegan, ka cadcad, lagu dayday, la raacay bay noqdeen. dadka ugu fiican bay noqdeen. dadka ugu fiicanna in aan dibadda ku noqonno, dadka ugu fiican, dalka ugu xunna in aan gurigeenna ku noqonno caqligal ma aha. arrintaas iyo cudurkaas daraasad buu u baahan yahay. yurub iyo maraykan marka aan tagnay maxaa kaloo la arkay? waxaa la arkay dowlad baa ka jirta. saa ka warqabtaan dowladaha shaqadoodu saddex bay u qaybsantaa. waa xeerdejin, fulin, garsoor. saddexdiiba waa ka dhex muuqanaa annagoo muddo gaaban joogna. aan ka dhex muuqanay waa ka sheegannahay dadka. aan soo qaado ilhaan, aan aragno ilhaan carabta waxa ay ku sheegeen, waxa ay ku sheegeen annaga uma quurno inaan ku sheegno. ayagaa noo sheegay, annaga ma aanan arag. sababtaan u arki weynay maxaa jira? waxaan u arki weynay waad ogaan doontaan, markii gabdhaheenoo dhan baa wada ilhaan ah, ayagay ku cusub tahay. good. aan ka socdo wax xeerdejintii, fulintii, wasiirada culus ah baa North America wasiir ka ah. good. aan eegno garsoorka. waxaa mucjisada ah garsoorka. qof kastoo mas'uuliyad qaada dhaar baa u taal inuu u dhaarto. madaxweynaha Maraykan waa dhaartaa. muxuu ku dhaartaa? Ameerika iyo masaalixdeeda iyo dastuurkeeda inuu ilaaliyo. dhaarta waa dhaartiisa.
okay aan eegno marka Soomaali xagee gaartay Soomaali waxay gaartay dhaarta ugu sarreysa in uu Soomaali ku dhaarto garsoorka caalamiga ah in uu maanta Soomaali gudoomiye ka yahay oo dhaartiisu ay ka duwan tahay dhaarta kale oo uu u dhaarto 190 xogaa dawladood in ay garsoorkeedu uu maanta gudoomiye ka yahay good dhan kasto aan ka eegno marka Soomaalida dibadda aaday caadi ma aha dhan kasto aan ka eegno waa dhan kastan ka eegno caadi ma aha oo loo qirsan yahay oo loo ogol yahay ma suurtoobaysaa marka dadka saasa inay dalkoodu inuu sidaas yahay ma suurtoobayso mustaxiil waxaan ku eegaynaa oo horey uga aadaynaa waxaa la yiraahdaa beesha caalamka waxaa lagu sheegaa beesha caalamka beel aan jirin deeqda baxasha oo Soomaalida siisa deeq waxaan idin sheegayaa xawaaladaha iyo Soomaalida qurbaha joogta 10 maalmood haddii xawaaladaha laga xiro waa nooga culustaho nooga dhib badan tahay 5 maalmood oo kuwa isku sheegay dawladaha deeqda baxsha 5 sano oo dawladaha deeqda baxsha isma gaarayaan walaaska ay nagu qabanayso 5 maalmood oo aan xawaaladaha laga istaajiyo 5 sano oo beelahan sheeganaya deeqdan bixinna bikasi sareeyaan waa dadkeena iyo sida inuu yihiin deeqdan raba marka inaan ka hadlo sida aan deeqda ku nahay 1973 maxaa dhacay 1973 Masar waxay go'aansatay kanaalkiiba baa la dul taagan yahay Israa'iil qabsatay inay dagaal ku qaado oo dalkeedii xoreysato dagaalkaas ay qaadi doonto kii ka horeeyay ciidamo badan oo la go'doomiyay gaajo u dhinteen gaajo xabad ma dilin waxa cajiibka ah safiirka Soomaalida oo hadeen Masar wax ku barto Masar ku korayo Masar akademiyada uga baxo Masri waa aqliyan laakiin dhalasho Soomaali ah oo safiiraha dawladda Soomaaliya u yimid wuxuu yiri Masar dagaal bay galaysaa waxaan rabnaa in aan caawino in la caawiyo ba la rabaa dawladda xitri oo waxaasoo dawladahaas carabta ah oo wada betroolka iyo maalka qaba waxa laga waayay miyaa annaga oo Soomaali ah laga heli karaa Abdullaahi Konga loo yaqaan Abdullaahi wuxuu yiri waxayan u heli karin bay Soomaali u heli kartaa maxay tahay waa dry food waa cunnada qalalan waa kalluunka gazacadaysan iyo hilibka gazacadaysan oo laba warshadood leenahay oo Soomaalidu maba cunto waa loo ogolaaday diyaaradahooday la yimaadeen waa qaateen habeenna badan bay guranayeen aniga waxaan tagay dagaalka markuu istaagay 2 bilood ka bacdi baan Masar tagay waxaa dhacday safiirka ayaanba la joogay waxaa dhacday TV-ga Masar waxaa laga sii daayay وعجيبك وانا دونا يا عجلداس waxyaabaha aan rabay inaan doono oo aan Djibouti la kaashado si aan u helo dokumentigaas waxa la soo saaray diyaaradihii Masar oo degaya xamar diyaaradihii soo raraya kalluunkii iyo hilibkii diyaaradii oo degtay
masar ku degtay oo baabuur military ah lagu caashaqay baabuurkii oo cararay oo siinay u cararay iyo ciidamada askari inta xabada riday wa TV-ga waxa lagu sii deynaa askari inta xabada riday oo uu gazcidi kalluun hilib wuxuu ahaan gazci safartay oo uu leeyihiin هذه القنبلة الباردة من الصومال قنبلة الباردة من الصومال محاجرة إن جون بانك كارنتاس صومالي يا بوحس waxaan rabaa marka inaan inta ku daro oo sheekadan buu soo qaaday anoo safiirka la jooga oo qado gurigiisa igu cazumay markuu qadada u fadhiistaba joornaalka maalintaas ayaa meesha lagu soo saaraa waa la fadhiyaa safiirka joornaalka markuu akhriyay buu maruudiisa asagoo la kaftamayo wuxuu yiri oo maanad iga dheeraynaysaa yani maanad iga dheeraynaysaa waxa loo tartamayna waa wanaaga ilaa meesha waxa kuma sawiran marwadii oo isbitaalka militariga dhaawacii dhex taagan oo hadaaya u qaybinaysa ba kuma sawiran meesha waxay u tartamayaan wanaagii u tartamayaan magaca iyo sharafka marwada jirda xuseen baa dhalay in maalqabeena u maleyn maayo waxa ay bixinaysay wax dawladda Soomaaliya ka yimid inay tahay waxa kale oo ku garanaysaa waxay ka soo qaadi jirtay alaabta free deal shop ka soo qaadi jirtay waa meesha ajaanibta iyo safiirada ay joogaan markay soo gasho iyada baabuur yar iyo ma wadatay fungoncini wadata markay soo gasho ilmihii oo dhan baa u ordaaya maxaa jira walaalahoodo dhaawacan bay wax u qaadaysaa markaas safiiradii kale iyo wixii kale aan la eegin oo ay dadkoo dhan gabadhan safiir marwadan lagu isha loo eegaya ma ilham kale aan ahayn gabdhahan oo dhan waa ilham waxaad la yaabtaan baan marka idin sheegaya oo idin rumaysanayn markuu dagaalka dhamaaday masar ay guuleysatay shir weyn bay ciidamada sare saraakiisha sare qabteen axmed ismaaciil baa wasiirka difaaca ahaa shaadli idinku haystay waxaa laga hadlay dagaalka sidii loo galay sidii la kala ahaa dawladaha gacanta siiyay in ay markaas darajo kala siiyaan dawladaha gacanta siiyay waxaa isku soo haray cajiibka ah kulligood waa hareen 20 dawladood waaga sanaga jaamacadda kuma jirno 20 dawladood waa hareen waxaa isku soo haray Sacuudi iyo Soomaaliya waxaa la yiri ciidamada biakmal kulligood cunada Soomaaliya bil cunayeen ciidamada waxa ay cunayeen waxay ahaayeen ciidamada Soomaaliya Sacuudi wax alla wax dhaqaaqay baabuur iyo taangi iyo diyaarad wax kastoo dhaqaaqa shidalka iga ku shubay markaas la isla fadhiisto waxaa la yiri labadan dawladood teebaan koowaad ka dhignaa tan kalena labaad ka dhignaa midna dadkay qoodisay dawladna shiraalkii dabaabaadka iyo bay buuxisay galgaliya ninba soo jeediyo wuxuu yiri Soomaaliya waxa ay nasiisay guntii caloosha ku xiratay wax ka baxa karta awoodeed dhaqaale ay leedahay maaha gunti waa nooc cadgoysay Sacuudi waxa uu haysto awoodda dhaqaale uu leeyahay inta uu naga siiyay xoolihiisa mithqaala dharratin ma dhama dadna waa ku
cadgooyeen dadna midqaala daratin madhama Soomaalida hala siiyo waa doodii meesha ka dhacday waxay ku dhamaatay nin kale oo wasakha baa wuxuu yiri war nimankan anaga waxa ay noo subiyeen waa hiilna wuxuu dhacaa intaasoo sano ka baclin hiil maaha wax ma joogta ah dadkan maalin walba u baahannahay qalbigana Soomaalida aan siin qoraalkana Sacuudiga aan siin waxaasin u subiyo xataa waa noo quuri waaye waxa aan u qabanay waxaan rabnaa inaan isbarbarino markaa oo aan isku eegno dadkeenu hadduu dibadda saa ku noqday dadkeenu haddii uu dowladaha dhexdoodana saa ku ahaa siyaasadoodana aan aragno kaalinta aan ka gelayno siyaasadana aan aragno وحق الدين تاعه آذن عبد الله عثمان مدحوينه صوماليا وهريجي أيا تجي وحي آذي سعودي وحي أركان فيصل وحي تجي فيصل ومروجيسن فيصل وحي يري جامعة عربته waxaa loo adeegsadaa bakoorad lagu garaaco jaamacadda carabta duulaan bay ugu tahay jaamacadda carabtu ka taabay ka qeylinay ka eed sheeganay iyo uu eed sheegana aadan cabdulla cusmaan al-hakiim aadan cabdulla cusmaan wuxuu yiri jaamacadda carabta waa yar tahay marba haddii jaamacadda carabta waxaa la timid fursadan ku soo dhexgalno kiiska waa in la suubiyaa la dhisaa la istaajiyaa ururka islaamka neef baa ka soo baxday aad buu ula dhacay waa qaatay ururka islaamka muctamar islaam baa waagi hore la odhan jiray hadda nin la yiraahdo akmaludiin ixsaan guul nin la yiraahdo oo ah ninkii la tartamay Erdogan ninkaas magaca wax badan magaca bedelay aad wuxuu yaqaan waay laakiin saas lama dhac sananiga ninkaas magaca bedelka magaca muctamar islaam baa xagee lagu aasaasay xamar baa lagu aasaasay yaa shir gudoominaya markii la yiro laga baqayo waxa laga baqayaa Masar yaa shir gudoominaya markii la yirina waa 64 yaa shir gudoominaya مفتيجة فلسطين بشر قدومي مقدشو لغو أساس جود وها عجيبة مركب هدان حاجة سياسة دنا قال انت قال لي هدان أوروردا عالمك جامعة عربتا ان محلا أفريكان يونيون يو ان أوروردا عالمك هدان أنغا ميدان عورني عن كلين هاي حاجة سياسة دنا halkaas ayaan ka gaaray waxaan rabaa inaan idin sheego Malaysia iyo shan dowladood ay ahaayeen Ingiriiska u gumaysan jiray waa dowlado hal jeer isu gumaysanay laakiin dowladdu waxay kala noqdeen oo kala go'ay marka jasiirado badan bay leeyihiin dadkaas jasiiradaha isku qabsaday laba dowladood Malaysia Indonesia inay kala Philippines maqan baa waxay isku qabsadeen jasiiradaha fara badan ay leeyihiin anaga leh iyo anaga leh yaa u garnaqay waxa u garnaqay muctamar al-islaam oo kiiskaas xalliyay nin Soomaali oo Ahmed Malaysia la yiraahdo oo tagay Malaysia baa nin wasiir ahaan jiray saaxiib ahaan wasiir baa ahaan jiray laakiin markaan wasiir maaha baa wuxuu yiri war ma dhici kartaa Soomaaliya taladiinaan ku guuleysanay oo mashaakilkeena ku xallinay war tala xumo idan ma hayn kartee maxay haystaa tala xumo idan ma hayn karto maxay haystaa
ninkii kelmadii baa ku cuslaatay ma u jawaabin laakiin caawan u jawaabina waxaan leenahay marna talaxumo cudurka ma qabne markaan waa naloo taliyaa taladeena ma aha waxa Soomaaliya ka socda ma aha taladeena waa على مستوى عالم كنا سيداسان أيان كأهين جود هذا عن دقائق أفريقيا سكذا في أفريقيا يعني دول فربضا لما أرك لما شيء لقوم الرياضة مدحوين تضبط مدحوين ذلك أها أو مجال الحذاء كليس جاري وطا وعدالة ماشي ودن بيسي وقف كجارو لمس من عمر بن الخطاب أصله جيد فردي يعني يمد ما نكاس يعني أمير المؤمنين كها إن كانها عدلت فآمنت بان وحالين هاي إنه نلح جوجي مدحوينه ووري آذن عبد الله عثمان هل كاسن كجاري إن عدالة وحدي عبر كذا لو إيجايو هالكاسن كجاري ما يصلها مركا ضد هانسيدا عن هاي iyo waxaa naga muuqda isma laha waxba qaldan mana lagu sii socon karo qaladka that's why aan leenahay jaamiciyiinta waa in ay si gaarana waan ula hadlayaa si gaarana warkaan guud waraan ahayn ayaan ugu sheegayaa